بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. إلهي وحن كرجيننا بشهر رمضان إنه بركايو إننا أقبلوا وحوانا أكسن إن سمين إنه حمانتنا إلهي إننا دافو وهديت إلهي إدوكنا سبحانه وتعالى، لكن waxay u baahan tahay in ilaahayna lagu mahadiyo aad iyo aadna run ahaan looga faa'iideysto oo isbeddelka ugu weyn aan ku samayn karno inaan ku samayno bishan gudaheeda ayaa la rabaa. isbeddelka bini aadamku wuu samayn karaa oo insaankan xoog weyn baa ku jira, laakiin waxaa la rabaa wax kasta ood adigu samaynayso adoo jecel inaad samayso, wax kasta oo xumaanana inaad iska dayso adoo inaad iska daysa jecelna inaad iska dayso. waxaa la rabaa marka nolosha dhan waxay ku salaysan tahay jacayl. maadaama bil ramadaan aan joogno, waa bishii ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey, shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas. hanuun baa loo soo dejiyey. hanuunkaas inaan aad isula garanno ayuu u baahan yahay. hanuunkaasi wuxuu ku salaysan yahay jacayl buu ku salaysan yahay. jacaylkaasna nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegay. jacaylka muxuu faa'iide inoo leeyahay oo gaara in bisha ramadaan aan xusno, isagoo mar kastaba jacaylku uu muhiim u yahay nolosha bini aadamka oo dhan, lagama maarmaanna uu u yahay. wuxuu sal u yahay jacaylku bisha ramadaan arkaanta islaamka ay ka mid tahay. arkaanta islaamka waa meesha islaamka laga soo galo waaye, gateway waaye, waa albaabkii weynaa ee laga soo galayo waaye. xooluhu xeray leeyihiin, magaalada albaab laga soo, garoomada albaab bay leeyihiin, wax walba albaab buu leeyahay. albaabka islaamka laga soo galayo waa albaabka arkaanu islaamka weeye. arkaanu islaamkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray, hal la rumeeyo ayaa nabiga loo soo diray, in la rumeeyo ayaa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam. markii lasoo diray markaa diintii ilaahay ee ambiyada ilaahay ay soo wadiyey muddo dheer ayaa loo soo dhiibay, laakiin wuxuu ku salaysan yahay dhammaan jacayl nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. in la rumeeyo jacayl bay sal ku leedahay. nabigu kolkuu iimaanka ka hadlaayey, maadaama arkaanul islaam mid ka mida maanta inoo bilatay oo bisha ramadaana, wuxuu ihi laa yuuminu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin buuli. aniga wuxuu yidhi maydaan i rumaynin, diintii la ii soo dhiibayna maydaan rumaynin ilaa aad midkiin uu ka noqdo dadka dhan, wiilkiisa, gabadhiisa, carruurtiisa, hooyadii, aabbihii, naftiisa, dadka oo dhan iyo aniga markuu isbarbar dhigo waa inuu aniga iga jecel yahay buuli. maxaa jira haddaan saa nabiga loo jeclayn iimaan runa ma jiro. saa calaa hadal saas carruurta nabigu wuxuu u soo hormariyey. ruuxu ilmihiisa aad buu u jecel yahay, waa wax isaga ka soo go'ay. ilmihiisa jacaylka uu jecel yahay isagaa isjecel ruuxu, waa sidaas wey macnaheedu. jacaylkaa ilmahagaad jeceshahay waxaa la rabaa inta kale inaad jeclaato, laakiin marka iimaanka la joogo waxaa la rabaa nebi moxamed inaad dadka oo dhan aad adigu isaga ka jeceshay calayhi salaatu wasalaam. naftaada iyo isaga mar iska nafta waa naftaada waa inaad nabiga naftaada ka jeceshahay, ilmahagana aad ka jeceshahay, adduunyada aad ka jeceshahay, dadkao dhan aad ka jeceshahay, aabbe iyo hooyana aad ka jeceshahay, islaantaada carruurtan aad ka jeceshahay. wax walba nabiga waa inaad ka soo hormariso. sidaas ayay diintu sheegaysaa. ramadaan oo marka arkaanul islaam maanta ah, oo maanta inoo bishay, oo 5 rugni ee diintan lagu soo gala mid ka mida ah, ayaa haddana arkaanul islaamka marka la isu keenay uu nabigu wuxuu yidhi
haddii aydaan saa yeelin oo aydaan saa ii jeclaanin maydaan i rumaynin maxaa laga wadaa waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam reer hadduu sahan yahay ciidan hadduu sahan u baahdo kambani hadduu rabo inuu ogaado investmentigiisa meeshuu tijaaradiisa ku samaysanayo wax kastoo nolosha ku saabsan sahan bay u baahan yihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sahankaas ayuu sal ka yahay nolosha dhan baa nabiga loo soo dhiibay inuu toosiyo wixii toosanna uu sii geesinimo geliyo diinta iyo caqligana la isku qabto saa daraaddeed waa maabkii ayuu nabigu inoo yahay nolosheenna oo dhan ruux maab la-aan safri kara marka ma jiro haddaad keligaatood lugaynayso meesha biyaha leh ee amniga leh waa inaad dadka warsato haddaad keligaa iska socoto haddii aad baabuur iyo daa'irad iyo saaran tahayna maa baaba hagaayaba oo qaanuun dhan oo loo sameeyey oo daa'irada kala hagi baa jira baabuurtana uu kala hagi islaamku saas wuxuu u kala hagayaa nolosha qaybaheeda badan oo isku dhacaya saas ayuu kala hagayaa islaamkaasoo dhan muxuu ku salaysan yahay horta nabiga in la jeclaado maxaa jira diinta uu keenayo xukunka uu keenayo wax wanaagsan inoo sheegayo waa inaan isaga jecel lahay calayhi salaatu salaam marka hore oon isaga ilaahay wax walba ka jecel lahay taas ayuu keenayaa biyaha maanta aan iska daynayno iyo cuntada aan iska daynayno iyo sariirta aan iska daynayo iyo waxyaalaha ka sii badan xanta iyo xaaraanta ay kamid iska wada dhaafayo waxay ku salaysan yihiin jacaylka nabi maxamed aan jecel lahay jacaylka marka waxaa la rabaa ramadaankan bal inaan tajribayno intee baan nabiga jecel lahay calayhi salaatu wasalaam oo intee baan diinta jecel lahay oo intee baan ilaahay jecel lahay si aan nolosheenna qaybaha kale ee ka duwan oo dhaqankeenna iyo xoolaheenna iyo dadkeenna iyo shaqadaan qabanayno dhammaan jacaylka in lagu soo baahan yahay jacaylka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeye waa maabkii ina hagaayo waaye maabkaasuu nabigu ilaahay wuxuu u sheegay wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim adiga waxaa la yidhi waxaad u tahay maab baad u tahay dadka oo dhan dadkan waxaad ku toosinaysaa nolosheeda meesha quman baad ku toosinaysaa waxaad ka leexinaysaa meel kastoo qalloocan oo hadhow haddii la maro halis galays nolosha oo dhani wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim hidaayada asaaskeeda hanuunka ilaahay baa iskale laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyaddiis waxaa weeye inuu ina soo gaadhsiiyey maabkaasuu keenay marka maabkaasaa marka waxaa la rabaa in si sax aad ula dhaqanto oodan khaldin yani way ogyihiin dadka baabuurta ku wada dalalka waaweyn sida maraykanka oo kale ingiriiska oo kale turkida oo kale dalalka maab haddii maabkaa la khaldo 100 kilomitir baad dhumi kartaa si dhib yar markaad dunta marka inaad dib u soo noqoto waxay kuu kalifaysaa waqti aad u dheer wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim jidkaa toosani waa ka ilaahay uu sameeyey oo nafteenna iyo caqligeenna iyo caatifadeenna iyo caruurteenna iyo xoolaheenna iyo dalalkeenna oo dhan wax ku salaysan ilaahay baa iskale صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بإلهي يعني جدك النبي محمد وعطتكو هارونيسو وك إلهي أو كون كان إسكاله جدكاس وإلهي أبو ريبات أدوغو دتك كو هارونيسا بالي هدان مركز جعايل هو الإمام وينو أرما جدكا قاضي كرنا مايا هدان مابكا لإنو سو ديبي قاضي وينو أنفلين وينو oon ka leexanno waan dhumaynaa soo maaha ha waa la dhumayaa saa daraaddeed ayaa waxaa la rabaa dadka ilaahay haddii lagu markay naftaadu khatar gasho oo cadow kaa xoog badan ku soo weeraro yaad ugu jeceshahay dadka ilaahay laba isma weydiinayso waxaad ugu jeceshahay ruuxii degdeg kugu soo gurmada oo cadowga kaa dhiciya oo gacanta ku qabta oo yidhaahda maya ruuxan anaa mas-uulka ahoo lama taaban karo kaasaad weligaa sheegaysa hebelaha waa kii colkayga dhiciyey khayr allaha siiyo xoolo kastaa siinaysaa weligaa ma halmaamaysid haddaad insaan fiican tahay
haddii oon ku dili lahaa ama jirna ku dili lahayd takhtarkii ku daaweeyey iyo kii biyaha ku keenay waa dadka nagu jeceshahay nabi maxamed calayhi salaam jacaylkiisu marka waxaasoo dhan buu sal u yahay oo albaabkii ugu horreeyey buu isagu yahay safarkaa ruuxaaga yuu isagu yahay nolosha dhan nolosha adduunyada ta aakhirada dhammaan waa la hagayaa jacaylkaa marka la fiiriyo marka haddii lagaga dhabeeyo adiga noloshaada dhan waad hagaajinaysaa haddaad kaga dhabayn weydana noloshaada dhan way kaa dumaysaa xalaqadan ramadaanka munaasabadiisa waxaa igu soo riday markaan arko dad fara badan oo muslimiin ah oo dhaqankii ay lahaayeen aan beddelaynin oo say u noolaayeen aan beddelaynin ood moodid baa ramadaankan oo arkaan islaamkii mid ka mid ihii inuusan iyaga khusaynin sidaa marka loo fiiriya markaa ramadaan isbeddelkii laga rabay ma keenin sabab jacaylkii la rabay in lagu dhiso ma keenin jacaylkaa waxaa la rabaa shaqadeenna inuu ka muuqdo oon nabi maxamed alayhi salaatu salaam ma jecelahay haa waa inaana dadka khayaarin nabi maxamed ma jecelahay haa waa inaana been la isu sheegin nabi maxamed ma jecelahay haa iimaanku wuxuu keenayaa markaa iimaankii sidaa laga waayo oo jacaylka nabiga iyo jacaylka nabigu wuxuu keenay laga waayo calayhi salaatu wasalaam iimaan kala dhiman waayo iimaankeennu inuu marka meel lagu murmo gaadho oo la yidhaha maxaa laga wadaa lama rumaynin laa ilaaha illa waan leeyahay inuu gaadho waa khasaarihii ugu weynaa ee ruux soo gaadhi lahaa wey bisha ramadaan markaa waxaa la rabaa inaan qalbiga ka jeclaano caafimaad bay leedahay iskaalmaysi xoog badan bay leedahay dadka oo dhan ayaa isjeclaanayo iswada kaalmaynaya cuntadaa la iska yareynayaa kuwa cuntada haysa cuntada dushana cuntada iska yareynayaan kuwa baahanna cuntadii baa la siinayaa dhammaan waa la iswada cafinayaa maxaa jira bishu markay dhammaato ayaan kulligeen waxaan rajo ka qabnaa jacaylkaas aan iswada jecel lahay oo nabi maxamed ina baray calayhi salaatu wasalaam inaan iswada jecel lahay jacaylkaasaa waxaa laga rabaa inuu cafis ina gaadhsiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay bisha ramadaan imaatinkeedu inuu yahay khayr ilaahayna uu ka rabo dembi dhaaf inuu dadkoo dhan uu siiyo malaa'igtiisana uu leeyahay addoommahayga arka siday ii raaceen oo jidkii nabiga ee jacayl ku dhisnaa ay u raaceen waxaa marka muhiim inoo wada ah rag iyo dumarba in layswada cafiyo oo layswada jeclaado oo carruurta aan barno jacaylkaas nabiga calayhi salaatu salaam oo jacaylkaa nabigu guryaheennana uu ka muuqdo shaqadan uu ka muuqdo dad badan ayaa ramadaanka waxay ku khaldaayaan intay taraawiixda iyo habeenkii aad u tukadaan bay shaqadooda khaldayaan markii run ahaan aan camalka dhibta badan bilaabaynay iskuulaadka iyo jaamacaadka iyo saasoo kale 99kii dalka Soomaaliya ayaa waxaa jiray dhibaato weyn ruuxii intuu habeenkii oo dhan soo jeedo ayuu shaqadii waajibka hayna ka tagayaa jacaylkaasi marka run ma aha inaad waajib ka tagto jacayl runa ma aha waxaa la rabaa inaad waajibaadkoo dhan isku wado si jacaylkaagu uu run u noqdo iimaankaaguna iimaan saxa oo ilaahay iyo nabiga markhaati yihiin uu u noqdo waxaan ku soo gaabinaynaa maadaama nabigu calayhi salaatu wasalaam hanuun iyo maabkii hanuunka oo dhan inoo hayo inaan nabiga aad ugu sallino salawaatullaahi wasalaam bisha ramadaan oo jacaylka aan muujinno inaan ku celcelinno salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan ku celcelinno xusuustiisa inaan siiradiisa aad u aqrino inaan wuxuu soo maray iyo dhibaato iyo gaajo iyo faqri iyo mashaakil aan aad iyo aad u xusuusanno si aan u xusuusanno dadka maanta baahan oo abaaraha iyo dhibaatada ay haystaan iyo kuwa xoolo la'aantu ay hayso iyo kuwa dhaxantu ay dilayso dhulal badan oo muslimiinta ah in aad iyo aad loo xusuusto aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan ilaahay maanta maalintii orda bisha ramadaan ina gaadhsiiyey dadka Soomaalida dhammaan waxaan ka codsan lahaa in soonkaana aad loo qadariyo
inay dibna uga wada fikiraan sida noloshooda ay u bedeli lahaayeen oo noloshan ku dhisan isnaca iyo isdilka iyo isdhaca iyo corruptionka iyo khayaanada guryaha iyo dawladda iyo meel walba ka socota noloshaas in lagu bedelo jacayl run ah oo ka muuqda shaqada xafiiska aad joogto guriga islaanta iyo odaygeedana ka dhex muuqda carruurta iyo waalidkoodna ka dhex muuqda adiga iyo jiiraankaagana ka dhex muuqda adiga ilaahayna idinka dhex muuqda waa bil tawbo oo sharaf aad iyo aad u leh oo la rabo cibaado iyo sujuud iyo rukuuc iyo taraawiix iyo duco iyo sali nabi in aad loo wada badiyo oo dhammaanna aan wada cafino isuna wada ducayno intaas ayaan maanta ku ekaysananaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh